aynuna u mahad celinno doorkii hogaaminta lahaa weliba xil adag ku soo shaqeeyey iyo dadaalkii ay geliyeen wasaaraddan muhiimka u ah ummadda Soomaaliyeed. waxaa kaloo halka iga muuqda Soomaalidu dawladnimada waxay u yaqaanaan 16 wasaaradood iyo xogayga hay'adaha madaxa bannaan ee hoos taga ee waxa jirta wax la yiraahdo government iyo governance, dawlad iyo dawladeyn. qaybta ballaaran ee governance-ka marka wasaaradaha dawladda iyo hay'adaha kale ee bulshada ka dhex jira sida ganacsiga iyo culimo awdiinka iyo waxgaradka iskaashanayo markaas halkaas dawlad wanaag ka dhalanaysa. halka waxa iga muuqda chamberski hogaankiisii oo ugu horeeyo Gabayre iyo Galambe iyo ragga kale. waxa fadhiya hogaankii hay'adda fayadhowrka iyo tayadhowrka, agaasinkii wasaaradda, shaqaalihii xirfadooda iyo aqoontooda ku kabayay dadaalada hogaanka, xildhibaanadii ka boromoosay meesha ee dhanka siyaasadda u diga rogtay iyo kuwa dadaalay oo soo waayay. dhammaantiin waad salaamantihiin. waa iska qori isu dhiibka u noloshu. hadal badan maanta meeshan ma yaallo. anigu wasaaraddii shanaad ee maanta aan xilka u wareejinayo way hadalba iguma hadhin. xogay laakiin hogaanka sare waxa la rabaa inuu jiheeyo wax oo markaa aragtida madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha iyo intaan wax isugu kindaro waa in aan idinla wadaago filashada aanu ka filaynayno wasaaraddan iyada ah si qoto dheer uu u sharaxay wasiirku ahamiyadda ay u leedahay dalka. waxaan rabaa horta bal guud ahaan caalamka oo dhan Soomaalidu sibaad waxaad moodaa dhan walba inay dadka iska duwan bay rabaan. adduunka bulshooyin baa ka jira, kuwa gaala iyo kuwa muslima ka jira, kuwa horumaray iyo kuwa dib u dhacay baa ka jira, dalal baa ka jira, dad baa ka jira inagoo kala waxba inaan kaga duwanayn. inkastoo inagu aynu sideennaba aaminsanahay inaynu waxa uu dadka Ilaahay abuurto dham inagu aynu ugu mudannahay. Soomaalidu waa dad qab weyn oo kibir badan oo run ahaantii yiridilo badan ay ku jirto, laakiin qarankiina uu ka jabay, dhaawacyo badan ay gaadheen, kabashana u baahan. wax badan iyaga isu geystay wax dibadda kaga yimaada waa yar yihiin. walaalayaal dadku waxay u kala baxaan dawlad, loo shaqeeye iyo shaqaale. meel dhexe cid iska degan adduunka ma jirtaba. waa dad wax ku foofa oo muruqooda iyo maskaxdooda iyo curudooda ku soo shaqo taga. waa ta sababtay in International Labour Organization uu jiro ILO-da oo halka xuquuqul insaan iyo iyadoo shaqaalaha la ilaaliyo aad maqlaysaan aad wax badan aragtaan. waxaa kaloo jira World Trade Organization iyo banuugta adduunka iyo dadyowga iyo inta ka hooseysa ilaa chamberska iyo sektarada kala duwan ee dhaqaalaha ah oo iyana maalkoodii iyo tacabkoodii intay meel geliyaan qofkii shaqaalaha fursad siinaya, dawladdiina cashuur la kabaya, iyo dawlad la rabo inay labadaaba dar yeesho, kala ilaaliso iskuna ilaaliso wuxuudana u ilaaliso. wata dawladnimo waa inahaasun, wax kale oo dawlad loo dirsada ma jirto. intaasaa markaa wasaarado loo sameeyaa oo la yiraahdo bal qolaba meelaha ku beeganto. anigu hadda biyihii baan ka yimi, wax badan baan u soo sheegay. hawlaha guud baan ka yimi, wax badan baan u soo sheegay. kaabayaashii wax soo saarka wasaarada qaarna waa kuwa iyagu saboolkii iyo qamandidii iyo wixii la raba inay soo saaraan, kalluunkii. tani xagee ka gashaa marka hawlaha baa raba inaan dul istaago. waa duntii waxaa soo dhan isku xidhaysay. kalluumaystihii, kii iibinayey, kii iibsanayey, kii meel walba la aaday. anigu marka baaci mushtarina meehi, laakiin wasaaradda shaqadan joogi jiray oo habeenii maalin waxaan isweydiin jiray waniyo shaqo see loo abuurta. berigii dambe waxay ii soo baxday hal shaqo in la abuuro inay kun wax u baahan tahay. oo halkaan isku baranay marka raggan chamberska anigoo farsamo ka hadlaya iyo xirfadleyda sidii loo kobcin lahaa oo iyana ay u baahan yihiin. waxaa jirta wax la yiraahdo value chain analysis oo wasaaraddan ay aad u fuliso oo la rabo sisin baa la dhoofiyaa, liin baa la dhoofiyaa, ari baa la dhoofiyaa, harag baa la dhoofiyaa,
muus baa la dhoofiyaa haba yaraato tiradiisu wax badan baa la rabaa in la dhoofiyo adduunka ilaahay shuruuc buu leeyahay nidaam buu leeyahay habraac buu leeyahay intaan iska durduriso wax u geyn mayso halkaa ay hay'addu ka soo galayso waxaa hadda miiska saaran dawladda dhowr iyo 20 heshiis oo in muddo ah la soo dhiranay oo lala galay dalka Turkiga qatar baa kuwayna la galaysa imaaraadka inala galay hadda Uganda qaar baa miiska la soo saaray adduunka oo dhami wuxuu xiisaynayaa inuu business inala sameeyo baa mushtari inala sameeyo wala nin meesha UN-ta jooga jiro Nicholas Kell oo jiray baanu bari doodna wuxuu Soomaalidiinu waxaad ku cantihiin baa mushtariga waxaana waa ku wacnahay baa mushtariga laakiin kawaaweyn baanu rabnaa South Africa South Sudan Kenya Zambia Senegal meeshii aad tagtay nin Soomaaliya wax China laga keenay rabo inuu dadka ka iibiyo saasay u ordayaan waa wacyiin hadda laakiin waxay u guurayaan industry wax soo saar aamina xirsi mooge Soomaaliya ayaa inoogu horeyso hadda mar hadda iyadu bilowday waxaan u maleynayaa ragga halkan fadhiyaana Jawhar iyo maxay ahayd Shalambood iyo Mareerli way tagayaan walaalayaal waxaa la rabaa saddexda dhardhaar in la isku kabo oo laga hadlo waxaan la yiraahdaa industrial policy siyaasadda warshadaha dalalku intaasay isku dhaafeen maalin dhawood baan anigu dekada weligay galay taagag bahla la yiraahdaa soo arko lagu yiri maraakiibta soo xidhan wixii aanu ka fikiraynay oo shaqaynaya ayaanu soo aragnay isbedelka ku yimid dekadaan aragnay ka ay u baahan tahay waan soo arkay waxa dekada ka soo dega dhamaantood way idin diiwaan gashan yihiin Soomaalidu xoogay yar oo shaqo ay haysaa $100 ama $200 ee reerku uu soo shaqaysto ama dibad looga soo diro horta xagu aada weyn isweydiino $100 marka ama dhowrkii boqol macallin quraanka iyo ka iskuulka uu wax ka qaato inta kale say u tahay baa dib loogu celiyaa China iyo dadkii soo tabcay baynu $100 u dirnaa horta Hindiya China Thailand maxay ahayd Brazil miya sonkorta laga keenaa digaagii ukuntii oo meelaha laga keenayo hard currency dalka dib baynu u celinaynaa wasaaradda arintaas joojinaysa ee hal abuurka taageerisa watan iyo chamberska private sector ku iskaashanayaan shalayna wasaaradda kale ka sheegay dalka markay iskaashadaan dawladdiisa oo dawlad aqoon ku dhisan ay noqoto baac mushtarigeeda iyo shaqaalaha ayuu horumaraa Mareykanka qofkana waxa lagu leeyahay 30% lacagta uu sanadkii shaqaysto dawladdiisana amaahda u badan iyada lagu leeyahay halka haddaad eegto Korea iyo meelaha qofkuna wuxuu tabco 30% buu meel dhigtaa dawladdoodana lacagtooda meel bay dhigataa waa ta u furudaysay inay horumar sameeyaan marka miyaynu ka hadli karnaa wax soo saar haddii investment aan lahayn Soomaaliya hal abuurkii waxa soo dhan isku xidhi lahaa horta wasaaraddan baa laga rabaa annana waa ku garab geli doonaa Rwanda dalka la yiraahdo inuu dariska nahay Afrikadan ku wada noolnahay wuxuu kaga horeeyaa dalalka Afrika oo dhan hal shay waxa la yiraahdo the ease of doing business furudaynta inaad baac mushtari ama hal abuur bilowdo qofku aroortii buu soo gelayaa 5 galabnimo isagoo waraaqay oo dhan haysta ayuu ka baxaya halkana waxa laga yaabaa 5 bilood qofku inuu dawaqsanaado haddii markaa intaas soo carqabadeed ay hor yaalaan Soomaalidu waxay kororaysaa baac mushtariga wax walba ay haystaan waxan bay sameeyeen war haddii kuwiina aydan ilaashan kuwa ka yimi mashriq iyo maqrib baa idin qabsan doona oo idin af garanay anu markaa waxaan u taaganahay oo aan taageeraa in la daryeelo la ilaaliyo la garab galo warshadaha iyo halabuurka baac mushtari ee urdinka Soomaaliyeed hadda inaga hormuud iyo dahabshiil iyo kuwaas ay nagu weyn Soomaa adduunweynaha hadii la barbar dhigo waxay noqonayaan maxaa la yiraahdaa dhibic bad lagu riday war dhibcihiina saynu garanayna inuu ilaashano maalmahay qaraar tahay ee Soomaalidu ay gurmad u baahan tahay ee loo baahday oxygen iyo waxtar intaan caalamku inoo soo gurman shirkadaheena ayaa inoo aasaasay oo dhamaantiin aad makhraati u tihiin Cabdullaahi in la yiraahdo wada shaqeynayno Hormuud Foundation ka shaqeynay dahabshiil chamberska waxyeeda kala duwan maalmaha abaaraha 3 milyan baa lagu qoraa
waxtar badan bay inoo leeyihiin in la daryeelo weeye markaa waa waajib ina saaran iyaguna waxaa la rabaa wixii horeynu ku shaqayn jirnay ee soo waarididda intaad ka baxdaan balsaynu wax u waaridi lahayn inaynu ina galno oo sisinta iyo muuska iyo wax walba oo mataqaanaaye aynu added value ka helayno saynu u dhoofin lahayn dawladdu markaa hal door bay waxaasoo dhan ku leedahay waa inay enabler noqoto waa inay kaabe noqoto haddaniyo xoogay waxay inagu jirtaa baaci mushtariga waxaynu u aragnaa ama warshadaha sidii tii kacaanku ay u arki jirtay mareedley soo aad looguma faano oo ma maqashaan inta 100 milyan lagu furay maad garan kartaa dhowr 100 milyan oo dollar oo Saudi iyo Mareykan iyo caalamka iska kaashaday baa la geliyay horta hadda awoodda miyanu leenahay maxilligii dagaalka qaboobe baa lagu jira qolaba inagu soo yaacaysa horta mareedle waxa la rabaa ragga halka jooga inay furaan itobna iyaga furaya kuwa cusub oo loo baahan yahayna waa la furaya laakiin shardigu waxa weeye dawladdu 3-4 wax bay idin ku leedahay inay idin kobciso iyo inay idin ka ilaaliso waxa aad qabanaysaan inaanu biyada iyo cimilada iyo dadka iyo deegaanka wax yeelin oo idinka horbaydho wiil Soomaaliyeed oo taksiila ah mise tugtug buu watay baan bari waraystay ka waran baan ku dawladdu maxaad ka filanaysaa waa intaan dawladda soo galin wuxuu yiri wadada inay iga baydhaan rabaa waxayga anaaba ku filane wadada iga xidhaysuna iga baydho marka horta baaci mushtariga wadada looga baydho idina isbiir quman ku socda waa maasantiin guul baan